بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لما أنت مركا أخيارتها وضنا قلصة أتياد السلام عليكم. وأنا أغنهي إنا لما أنت عاد كهشان برنامج كان أو عاد في سيسان ما أنت وحن كقاطن دونا مركا برنامج كان قصة سو مركا رنتي أذيك عدد قف مركا وحكرنا يا أو مسكح لتهاي ولا شهر وحكبت لي دونتا waxayna qisadani ka hadlaysaa qofku inuu si kasta xal kasta iyo wax kasta ku sugan yahay uu ka gudbi karo marxaladaas ka gudbi karta marxalad ka soo adag balada qisada aan kula galo ninkan aad u jeedaan waxa uu keenay isbitaalka inaan dhalay inankaas oo markaas arrin aad naxdin ku dhacday doctorku waxa uu sheegay inuu inankiisu ku dhacay xanuun la yiraahdo shil ama paralysis oo aanu dhaqaajin karin xubin jirkiisa kamida ilaa gacanta ilaa carabka iyo indhaha mooyaane inta kale jirkiisu waa disable waana xanimay mana shaqeynayaan arrintii ayaa ku adkaatay waxaan loo sheegay in 2 sano oo haysto marka nolosha gabadhiisa ayaa waxay weydiisay maxaa dhacay tiraado wuxuu yiri wax kasta khayr bay ku dhamaan doonaan aabes wax dhiba ma dhicin inaan kana u jeedaan waxa ku dhacday 16 sano ka hor ayaa dhacdadani ku dhacday waa ninka halka jiifa ee aad arkaysaan waxa uu marka ilaahay ku mahadinayaa maadaama ilaahay 16 sano ka hor loogu saadaaliyay inuu dhimanayo 2 sano kadib haddana uu nool yahay 16 sano kadib wuxuu sheegayaa inaan ka yari uu leeyahay maadaama hadda 16 sano jirsaday wax kastoo qofkina aadana qabto ayaan ku fakaraa inaan qabto waxa uu galay ninkani jaamacadaas oo markaa uu dhameeyay kadib waxa la sheegaa markii jaamacadda uu dhiganayay in dhalinyaradu badanaa ay oran jirtay ninkani markaa waan disable maxaa loo dhibaya wax ma dhigan karo ninkani ma guulaysan karo wax ma dhigan karo ninkan ma qalin jaban karo ma dhamaysan karo xataa waxay gaadheer macallimiinta markaa meesha iyo professorada ka dhigay inay dhahaan ninkan maad ka daysaa markaa waxbarashada balse isaga ayaan marnaba isdhiibin ninkan wuxuu sameeyay dadaal fara badan waxana hadaladiisa ninkan kamida inuu sheego anigu waxaan ku soo baxay buu yiri 96 boqolkiiba imtixaankayga waana darajooyinka ugu sareeya marka darajo la eego oo qof kaamilan marka qaarkood ay ku adagtahay inuu keeno waxa uu dhammaystiray quraanka oo uu xifdiyey waxa uu ku guuleystay waxyaabo fara badan oo markaa noloshiisa kamida maalmaha kamida ayaa wax dhacday madiirka markaa maamulka ayaa waxa uu damcayn la kulmo markaa meesha jaamacadda dhigan jiray albaabka ayuu ka soo xidhay waxana uu diiday markaa inuu la kulmo isagoo markaa yeesayo oo leh qofkan uu markaa ka wareerinaya qof maaragtay disable weeye aan meel la gaadhay saasay tahay isagu isma dhiibin marnaba waxa uu sameeyey markaa wax kasta oo markaa uu ku fakarayo inuu awoodo hadallada dadka qaarkood kaga imanaya way dhibayaan marka ay dhahaan adigu saasatahay masaxay laakiin saasad jidaan hadda jaamacadda waqtiga laga bixi lahaa ee la dhammaystiray waxaana maamulka iyo dawladda iyo markaa dadka ku sugnaa meeshaas indhaha ku hayay ninkaas disable-ka iyadoo la guddoonsiinayo shahaadadiisii iyo markaa waxa allaale wixii markaa uu mutaystay isagoo ka mid noqday ardayda ugu sarraysa markaa college ama jaamacadda uu dhiganayay saa darteed adigu waxaad fiirisaa nafsadaada bal ninkan muxuu ku dheeriyahay masaba adiga intaad doonto ka caafimaad qabo oo haddana ka wax qabad yar
ninkan disable-ka aad arkaysid wuxuu ku leeyahay waxa kasta waxay tahay buu ku leeyahay kelmadiisu quwatul iraada ama doonista qofka marka niyadiisa insert waxa ku jira marka adiga waad samayn kartaa jaamacad baad ka qalin kartaa guulo fara badan baad samayn kartaa koobaad ku guulaysan kartaa wax kastaad qaban kartaa awood fara badan baad leedahay waad awoodaa gabadh iyo wiil waxaad doontooba ahaw laakiin waxaad awoodaa wax kastoo noloshaada ah inaad ka midho dhalisid waad ka midho dhalin kartaa waad ka midho dhalin kartaa waad ka guulaysan kartaa waa inaad jeclaataa buu leeyahay isagu si markaa goolashaada aad uga midho dhalisid waxaad qabanaysid waa inaad jeclaataa dhibka innaga ina haystaa baynu soomaalinaya waxay tahay waxbaynu qabanaynaa waxaynu qabanaynana ma jeclin waa inaad jeclaataa waxaad qabanaysid si aad u guulaysatid mar labaad iyo mar saddexaad shaqadaad gacanta ku haysid wax kastaba ha ahaato meel kastaba ku sugnow waxaad gacanta markaa ku haysaa waa inaad jeceshahay si aad u guulaysatid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.